maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha Diseembar 2020 xarunta Sanco Center ayaa deeq mooto bajaaj ku wareejisay hooyo naafa ah oo haysata caruur agoon ah. deeqdaani ayaa ka timid gabdho muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka hore waxaa mahad iskale Allah subxaanahu wa tacaala. maanta waxaa joognaa xarunta naafada Sanco Center. waxaa kale oo maanta aan walaashin qaaliga Maryam Maxamed Luule gabdho walaalo oo muxsiniin ay u soo dhiibeen mootadan ayay ii wakiisheen. mootadii waa tanaa waxaan ka bixinay $3,600 oo doolarka Mareykanka ah. marka hadda waxaan rabaa anigu ah maamulaha xarunta Sanco Center waxaan ku wareejinayaa furihii mootada ayaa rabaa inaan ku wareejiyo ayaa u rabaa waana tanaa sidatan. بسم الله الرحمن الرحيم walaalahey waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol wajaada waa ku dhex jira waa ii jeedin qayr badan ay idin rajeeyahay adduunka aakhira kaamil kulligiina Allah idin siiyo awlaadiin baar Allah idin kaaga dhig. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. qala Allahu ta'ala wa asdaqul qaa'iliin ma ala al muhsiniina min sabiil. ilaahi wuxuu yiri muhsiniinta wanaaga falayaan dariiqul mu'akhadha ma ahaan waxa dhibaha maarata alxamdulilaahi الله يسمى جنوات ومahadsanyihiin dadka gabadhan soo caawiyay mooto bajaajka soo caawiyay muxsiniinta waxay iidaaba u duceyso tira gaadiid aakhira Allah idin kaga dhiga tiray